السلام أيوة الله يحكي الله والسلام شربوا السلام يمكن والسلام عليكم سيدنا أصحاب تعالى القاسم والسلام من واحد الله سألني ما تيرفور كإثيوبيا أنا وأنا آخر ما أنا يا أصحابتا بس أتوشى عندك كيما هذه هذا أنا دروي الناس أصلا العرس اللي كل شيء اللي مش جاي لا سبرايز ما يدري سبرايز اللي عملها اللي شيء أنا أقول أصحابته عن والله بعد الله سدير أنا ربيري قلنا إذا كنا حدث فلو صدق لي لكن فلو قصب قصب إن صدق أنا عوا أنا كيكي أنا يا الحمر أنا يا الحمر أنا قصب قصبتي فلو كل من الحمد لله سفر كيجي وان تغي hadda waxaan joogaa dalka Zambia waliba caasimadii oo Lusaka joogaa si qurux badan waa la ii soo dhaweeyay hadalka daadaya reer Muqdisho Sharmaaki Cabdinaasir oo aan idin baahinin muuqaal ku aaday inuu tagay magaalada Addis Ababa ayaa hadda wararku waxay sheegayaan in biya waxyaabaha ay la xiriirto qaarkood waxay aaminsanaayeen in uu doonayo inuu show kaga qayb galo dalka Zambia laakiin muuqaal uu soo duubay Sharmaboy waxa uu sheegay in gabi ahaanba arrin fanqosaysa uusan u tagin dalka Zambia isla markaana أنا فاميلي أمارين قويسة وتبي اسمها كان لحريت يدون يعني يودران ذلك كندا جارهن مجال تورنتو inkastoo wararka qaarkii ay sheegayaan in arrimo badan oo halkaa uu ka leeyahay laakiin Sharmaboy waxa uu sheegay in uusan doonaynin in show uu ku qabto dalka Zambia laakiin in reerkiisu ay doonayaan inay safaaradda Canada ee ku leedahay Zambia ay uga dacwoodaan isaga iyo xaaskiisa kadibna ay u diraan magaalada Toronto ama Ottawa ee dalka Canada laakiin Sharmaboy waxa uu sheegay inuu doonayo dhawaan inuu ka soo hadlo waxyaabaha ay la xiriirto mustaqbalkiisa ee uu tago dalka Zambia laakiin xogta lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in hadda qorshuhu uu yahay in arrimo fan uusan u imaanin laakiin arrimo u gaara uu u tago dalka Zambia adeeradiisa iyo heladiisuna ay halkaa joogaan haddaba waa kan Sharmaboy arrimahaasi ka hadlay saaxiibayaal وإن السلام الصومالي وين ميل بواجوكتان سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب ما شاء الله الحمد لله سفر كيجي وان تغي هذا وحن جوا دلك Zambia ولي بعاصمة ولوساكا جوجا سقروح بدن والإيسو دوي صومالي وين يضمان خاصة الذي وماش أقول تغي فمل كيجا مركا dad badan oo isla wareegayeen meesha aan aaday iyo inta badan dad badan baan ogeyn anigu waxaan joogaa dalka Zambia oo aan ku suganahay oo dal shidan ah ma sha Allah waxaan rabay inaan ka hadlo oo muhiim ah arin aan rabay arinka aan u imaaday magaalada waxaan u imid horta aniga familkii eheladeyda oo aan u imid arrimo aniga qaas ah marka fan laga tago oo nafsad ahaan aniga qaas Sharmaaka ahaan waxaan rabay inaan ogeysiiyo Soomaali weyn iyo dhamaan faniskeyga meel walba ay joogaan ee dunida kaga sugan yihiin dalka Zambia in aanan u imaan inaan wax barnaamij ama fan wax ku saabsan aan ku qabtaa ama showyo oo kaleeto ama barnaamij show oo kale inaan ku qabto uma imaanin arrimo aniga ii qaas ah oo aan u imid familkeyga u imid waa arrimo ay qaas ii wadaan insha Allah meeshaan email ka sii wacan insha Allah waan gaari doonaa team Sharmaboy waxaan jeclahay tiimtaana dhamaan inay nala socdaan waxa idin leeyahay niman yahow waxa ogaataan oo alaabta ka buuxsataan oo aad ku jiiftaan oo aad ku soo toostaan wax barnaamij la dhaho iyo wax show la dhaho iyo wax fan ku saabsan haba yaraatee in aan u imaanin dalka Zambia ee aan u imid arrimo aniga ii qaas ah iyo howlo aniga ii gooni ah iyo familkeyga iyo adeeraday waan u imid hadda korna idin ma sheegano idin ma dhihin marna idin ma adeen adeerada iyo familkii wax saasa laakiin hadda waan ku khasbanayo waa dadka meesha ay keenay waa dadka programyada ii wado howlaha ii wadana waa howlo ka aniga mustaqbalkeyga ka dhana oo aniga ii gaar ah marka waxaan u sheegayaa faniskeyga asxaabteeda hadalka aan idinku sii dheereenin muhiimadda aan raba videoga inaan uga hadlo wuxuu ahaa in aan aniga wax show la dhaho aan Zambia ku qabanaynin kuna qaban doonin
haddana kuma qabanayo weligeyna kuma qaban doono macnaha umaba imaaninbo Zambia waxa oo imid arrimo aniga ii qaas ay mustaqbalkayga arrimahayga iyo familkayga waana idin salaamaya dhammaan inta safarkayga ogeed iyo inta aan ogeyn inta dhamaantooda waa salaamaya Soomaali Maxamed waxa idin leeyahay hayee hadii wax cusub Nairobi horta salaamaya ayuu asxaabta waxaan leeyahay kala salaam شربان سلامة يوكل سلامة عائلة البلد تيم أصحابتا القاسم سلامة من وحيد الله سألني ما تير فورك جوبيا آخر ما وحيد الله يا أصحابتا قصة عوشة ذكي معك هذه هذا تاني قروي الناس أصعد عرصة اللي كل شيء ودي مش يجي إلا بحنك سبريس ما يدري سبريس يا ما يجي شيء أنا أقول أصحابته عنه وحيد الله سدير أنا ربيرك كنا إذا كنا حديث فول وصوت على بيل لك بلوم قصب وقصب إلى صوت أنا وهو أنا كي أنا يا حمر أنا أي العبر أنا قصب